mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa magaalada Neyrobi waxa ay ku soo bandhigeen astaan iyaga u gaar ah waxaana sidoo kale ay munaasabadaasi ay ku xuseen boqortooyadii Imam Axmed Gurey warkaasi waxa faahfaahinaya wariyaha Cabdifataax Makki Samatar beesha Karalahawi ayaa ku soo bandhigay astaan u gaar ah magaalada Neyrobi caasimadda dalka Kenya munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala gedisan ee bulshada beesha Karle dhanka kale xafladan astaanta u gaarka ah ee beesha lagu soo bandhigay ayaa sidoo kale lagu xusay tarikhdi boqortooyadii Axmed Gurey oo isna ka soo jeeda beesha Karalahawi dadkii munaasabadan ka hadlay ayaa hadaladoodii waxa kamid ahaa dhulkaas aad ogtiin taariikh ahaan inuu annaga aan u geyn jirnay raashinka iyo waxay cunaan saas daraadeed imaamkuna wuxuu u geeyey inuu xoreeyo waana ka xoreeyay gaaladii markaas joogtay waqtigaas taariikh ahaan marka boqortooyada Imam Axmed Gurey boqortooyada Soomaaliya ugu aasan oo ugu rooreyso oo ugu weyn waay ilaa haddana lagu xasuusto maxfaska ku yaala Ingiriiska uu dhex yaala asaga taariikh badan oo laga qorayaa hadda aanu intii ma soo koobi karo laakiin taariikh badan oo imaamku ka qabtay gobolka maxalla Soomaalida ay degto waxa la xasuusan yahay boqoradii milil ka dambeeyay inuu asagu ahaa ninkii ka xoreeyay magaalada la yiraahdo waxa la yiraahdaa hadda way gamqayahay baali dhulkaas iyo harar magaalada harar ninkii ka xoreeyay waa gumaysi marka taariikh weyn oo soo jireena oo waliba nin Soomaaliya oo taariikhdaas oo kale leh caalamka kama jiro meel walba oo joogno alla aan kaga cabsanno marka xigto waxaan salaamayaa dhalinyaradii soo qaabalisay xafladan boqortooyada laga hadlayo dhalinyaradaas oo waqti badan iyo juhdi badan ku bixisay xafladan tan inay qabsoonto ayaan ayagana salaamayaa oo u soo horeeyo محمد كامل خضر عريس أدنبار عبسلان حسن عبد السلام حاج إبراهيم عبد الله محمود إبراهيم قدوميه هذا حسين علي دمان دنيا راس انتي لقبان بالسيبو وان سلاميا oo xafladan mid xigto iyo beesha meel badan ayay degtaa aan ka bilaabo caasimadda magaalada Muqdisho qabayladka degan kuwa ugu badan bay ku jirtaa ama deegaanka qaybta labaad bay ka tahay meel badan oo kalena way degan tahay sida ceelbuur galhareeri oo kulli wada ka wada tirsan gobolka ama maamul goboleedka galmudug waxa kale oo beesha ay degan tahay Itoobiya sida imay bari imay galbeed dhadhame baabili meelo badan ay ku badan tahay iyo meelo looga badan yahay intaba sida jarrati tuliguleed meel badan oo sidaas keete iyo in badan oo hadda halkan ku soo koobi karin meel badan ayay beesha degan tahay marka waxaan hadda halkan la isku yimid waa in uu maartay taariikhda hore dadka macnaha la xasuusiyo wax kale oo dhibay cidna in wax looga sheego midna looguma imaanin uga saalax baa waxa yiri oo nin karin la ah oo inta isku baranay ninka u horeeya naqaana وشيخ بشير شيخ علمي ونمن حواض الله هالكا مركو يري وحا ليري والا يقانا مركا ان هدا وحان ليهاي ما عوض ماشا وحا كدعيا دبالدك عدي لغو بدرين هيران منا تاسونا هيدي لا تالو مركا تاساسان كليهاي مركا الحمد لله هذا نسو دوينيا محوها هي رجمانكي ويا بقرتويدا هذا نسو دوينيا waxa weeye hadaadan adigu isxusan lagu xusin maayo hadaadan adigu isxusin ma lagu xusaayo waad ogtihiin taalooyinka Muqdisho ka dhisan asaga baa u malaynaya wax ka dhisan
wax kale kama dhisna marka waa la fara badan yahay buulo burta gorgorka ninka talyaaniga ah lagu dilay nin annaga ah indhaceel daameeda dhihi jiraa dilay wax taallaa looma dhisin waa halgamayey waxaan ka dhagaystay BBC-da 3 jeer ayaa sayidkii indhihiisu ilay ka timid islaam uu jeclaayo uu qabay markay dhimatay wuu ooyey faras aad baxdooyuu lahay markuu dhintana waa ooyey markii ninkaas indhaceel uu liiraan dhintana wuu ooyey 3daasba inuu ka timid sayidkii saasaan BBC-da ka dhagaystay annaga dacdeenu waa iska yar tahay 200 oo sano ka hor weeye waxa ninka hadda annaga ulaax farax la yiraahdo oo leeyahay karin la uga fogaadaad ceelka iigu diideen hadduu ka dhinacayga taagan yahay maanta ceelka iima diideenna marka waxa weeye xusitaankana badiya aad iyo aad aan idinku mahad celinayaa haddaad ficiladan sii wadaanne xooggii kalele iyo boqortooyii kalele way soo noqonaysaa. Axmed Gurey, Somali Cable TV, Nairobi.